dhowr erey tiri abtiyow reexa Salebaan waa abtiyaasha naasa ka nuugtay hooyadaaba ah abtiyaala ku nahay waa ku jecelnahay annaga inaan ku gafno ma rabno wiil kale oo Soomaaliyeed inuu ku gafo ma rabno kuwii ku difaaci lahaa baan nahay leel baliil waa ku jecel yahay waa abtiga hadana bil aadanana waxba qaldoomi karo abtiyow wax Salebaan ay heshiis ku yihiin adiga lagu aflagaaday ma jiraan gabar kale oo Soomaaliyeedna ma rabno in la aflagaaday laakiin walaalayaal waxaan rabaa leel baliil haddii uu qaldan yahay annaga waa nimankii qabsa lahaa taasaan rabaa meesha muhiimadda ugu weyn u soo koray inaa ogaataan waxaa la yidhi walaalkaa markuu qaldan yahana u hiili marka laga qaldan yahana u hiili labadaba annagaa u hiilinayna yaan mediyo loo soo tuman yaan mediyo loo soo feesan wixii asaga iyo kaarle iyo ka dhexeeyo dhallinyarnimo ah annagu ma rabna inaan dee dhallinyarnimadooda iyo wixii maslaxa oo waadinimo iyo walaalnimo inaan u dhexgalnaa rabnaa kaarlena waa naqaanaa nin dhallinyaraa oo walaala oo Soomaaliya oo dhan jecel yihiin jecel dadku u siman yihiin waana ku ixtiraamnaa meesha ku ognahay laakiin خدك ما كجوا أبوانك أي مقشان بينسي إيو مسوول إيو تلفون وصل قلا أملينا تلفون وصل كارل هذا مقلة هذا واقف مقلنا يعني وما سنتين أوكي ولا مقلة هذا ها أبوان هذا ما سنتين تلفون سوق مركا waxaan rabnaa leel baliil wax walba oo ma taqaana ay gabdhaha ka tabanayaan sida ugu wanaagsan oo lagu dhameyn karaan diyaar una inaan ku dhameeyno wallaahana gabar Soomaaliyeed raal ka in la aflagaadey laakiin haddii niman raba inay qabiil ahaan u weerara ay jiraan annaga qabiil ahaan u difaacayna dadka ugu hadal badan ugu indha adag ugu indha gaduudan meel fool xun annagu mar walba gabar uma socono gabarna waa difaacayna mana rabno inaan ayno gabdhaheeno dhanna raali ahaada leena laakiin qabiil ahaan haddii loo weeraro annagaa taagan nuuc walba isugu jirna annagaa difaacayna cid u soo ordi karta iyo cid u durbaantuma kartana lama arko wixii dhallinyaranimo iyo wixii ma taqaanaa fanka ku saabsanna gooni waaye gabdhaheenan raali ahaada leena maarisha raali ahow in lagu caayo wallaahna raali ka ahayn anigu waa ka xumaaday iska daa nin kale oo Soomaaliyeed hadduu ku caayo inaan ku difaacaan diyaar u ah oo masuul haddii la caayaan diyaar u ah inaan difaaco oo walax haddii la hayaan difaaco u ah oo fortuun haddii la caayaan diyaar u ah inaan difaaco gabar walba oo Soomaaliyeedna anagu raali ka manin in la caayo marka raali ahaada wixii dhacana waa ka xunnahay ayagana waxaan rajeynaynaa hadday wax ka qaldameen inay ayaguna waxay ka qaldameen waxaan rajeynaynaa inta isgartaan inay labaduba ka soo hadlaan arrinta heesta meesha laga saaro Carlo adeer waa ku salaamaya أبوان هذا وما سنتها عاوة أسوأ هذا لكن هذا الكاغوا إدقي نشرف لا تهي أو عتكرة أو قرن جوي كرة إلى إذن كيس خوش عسنا وحاوي ولا جلا غير واش شيء ليل بليل أنا تسوي صورة هذا الشو وأديك بروبلر يقالد أحمد صفوان يقعد مقعيسي ذا وتسوي صورة هذا شان وشكتان دي وقتها ليل بليل معها فنان شاي فانك كوسو بيري ليل بليل دور iyo 10 sano fan ku jira markii koowaad oo microphone qaatay 2012 ahayd macnaha darajada ugu sareeyay uu ka gaaray fanka marka asaga ah taa uma fiicna ma ogtaa waxaan waa wax qormaya ma adeer waa saas waay adeer waa sax way maqlaysaa Soomaa تلفون وصل قلا ma fahant marka waana kugu kalsoonahay ma garat adeer hadda ma la maqlaa aadan ku maqlay abwaan adeer waa annaga ninaan meesha ku ognaha tahay meesha waan kugu fiirsanaa Khalid Khayr in adeer waa mahadsan tahay Khalid Khayr in adeer أيوة emotional نوان نقطة so يا وما سنتين يضمان أصحابنا اوكي عاقل ما أركن أيوة حناقي عاول اركي دج باش أميش قرعة ورسي مش على كذا نيه أكون كذا يا عيان كم عرفت بوفي أكون ده وكله بوفينا هذا هذا
hadda markaa meesha gabdhahan wixii caay maaragta ani horta gabar wixii caay wallahi oo bilaahi waa ka xumaaday gabdhaheena hal caaya maaragta uma qalmaan gabdhaheena waa gabdho ku qurux badan waa gabdho sharaf leh waxaas waxa la soo dhahayna views ku raasay waxaas ma ahe haddaad ka soo bixinina raaligelin Soomaa kulligan waa kugu yaacinaa wixii team gabar oo dhan ninkaas lagu yaaco wallahi inaa power leena 2023 waa tusayna ninkina soo caayo ma garateen gabar walba oo heliya insha Allah gabar walba oo heliya adinka baa bismaan gabar walba oo helino nimankan iska dhicino dhaqanka TikTok ka jiro maya ani been midii sheegayay lagama yaabo inaa maaragta qaato macnaha in gabdho walaalahee lagu xadgudbo weliba kuma sii jiraan Mrs. Wally Marish kuma sii jiraan anigu waa saxiib ku dhow bisaamsa gabar oo dhan maya gabdhaha dhan laakiin kuwa adiga istaqaanaano dee asxaabteeno gabar oo dhan walaashaa waa ugu yaa hadduu adeeg kaa dhalo iyo hadduu dhalinba gabar oo dhan walaashaa waa ma fahantahay waa idin jeclahay waa idin difaaca intaan noolahay waa idin dhimanaa waa idin jeclahay guuleysta dhammaantiin halkan waxaa ugu brother mahadsantahay buu khaalid ayub aad u mahad haye dhammaantiin waxba arrintaan wadin waa hadashay ka dhac ku aamus waaba dhamaato ma fahantay waxaan awal ba attention ay raadin attentionkina waa heleene intaas ugu har ma fahant meesha ugu harayna hayo la qaada والله هدينا اللي جوا شركة أنا قلت براعة ha aadina because براعة هدي قل gabdhahan la hadlaaya intii la soo saaro sheekada lagu soo celceliyo meel ma ka soo halin hadii sheekadaas lagu soo qaado idinka meel saaran iska tuura daaqada because it's not worth it qabyaalad fiiri tubaraac iyo qabyaalad iyo saqajaannimo iyo dhubuq kale iyo dad kale waxa mataqaanaa views ku raadsanaya iyo ma fahmaysid waxa anaga dad waaweyn noo yimid hadda waa abwaangeesi waa oday wuxuu dhahay raalli kama nihin ku laabanayna hawshaasna waa kasoo garbaxaynaa abwaanka ka warsugno marka hadal weyn waa intaasaan warsugayna insha Allah صح ay guuleysta aad idin jeclahay dhamaantiin